السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دو إليس يوتيوب channel dhegeystayaasha nala socda waa casharkeeni labaad oo aan uga hadli doono sidii aad u dhooran lahayd your privacy markaa isticmaalaysid Windows 10 oo lagama maarmaan ah. casharkaana waxaan kusoo bandhigaynaa dad ku hadla afka Soomaaliga meel kasta adduunka uga sugan yihiin. cashar ku baxaya afkooda hooyo oo ah kobcin iyo horumarin luqadeena hooyo in cilmiga lagu tarjumo si dadkeena uga faa'iideystaan. kaas waa hadafkeena koowaad. waxaan idin rajeynayaa inaan intaas fadhiyo. haddii aad nagu cusub tahay naga mid noqo, isqor oo sii gudbi oo la wadaag dhammaan dadka aad isleedahay way ka faa'iideysan karaan. clipkan aan duubnay waxaan idinku soo bandhigi doonaa qaabka aad xogaha ku gaarka ah aad u qorsan lahayd markaad isticmaalayso computerkaaga. waxaan filaynaa in computerkaaga uu ku jiro Windows 10 operating system waxa la yiraahdo, si aad u ogaato nooca mataqaanaa barnaamijka computerkaaga ku shaqeeya. haddii aad aqoon casharkeenii hore qaado oo ku xirno saas ayaad ku heli kartaa. marka si aan casharkeena u guda galno waxaan tagaynaa marka ugu horeyso si xogaha qofka bini'aadamka uu qorsado ee aanan u noqonin wax laga faa'iideysto oo sidii doona laga yeelo. xogaha ku gaarka ah ee seyladaha idhahdiyo ogeysiiska lagu kala gato waa dhib jiro maanta maadaama internetka isticmaalkiisa uu batay. marka sidaas daraadeed waxaan tagaynaa marka ugu horeyso start menu. waxaan nooga xigto setting markaan tagno shaashadan baa noo soo boodeyso. shaashadan waxaan ka dooranaynaa privacy oo ah xogaha gaarka ah. sidaa ujeedaan aniga waan iska xanibay dhamaantood. waan dhihi kara on waa wada dhihi kara. marka badanaa haddii aad defaultiga ugu horeyso markaad gashato way wada daaran yihiin. marka looma baahno in advertisement idhahay ogeysiis in lagu isticmaalo maaha, waa inaad iska saartaa. marka aniga waa iska saaray oo waan iska xanibay oo disable baan ka dhigay. waa generalka, waa speechka, kulli way xiran yihiin oo ujeedin. ink typeka waxaad qorayso in ay Windows ay ogaato marka aad keyboardkaaga wax ku qorayso. diagnostic toolkana waxaad ka doorataa optionalka midka ah ka dooro diagnostic dataha in la diro, si kale ma jirto. inta kale waan iska xanibay. waad ujeedaan improve ink typing, I don't need it. diagnostic feedback aan joognaa. activity historyga iyadana waatana store my activity history on this device. macnaheedu computerkayga ha lagu kaliyo. halkan waxaa ujeedaan clear history, wixii aad hore usoo isticmaashay ayaa isticmaalaysaa sida halkan ku muuqato. markaan halkaas uga gudubno location waa halka aad kaga sugan tahay adduunka. waxaa la ogaan karaa meesha adduunka ugu sugan tahay waa locationka sida ujeedaan. marka hadda anigu off bay ii tahay, waa ujeedaan waan iska damiyey. waxaa kusoo haray kamaradaada. kamarada iyadana waa dhibaato hor leh oo badanaa loo isticmaalo. anigu way iga dansan tahay, laakiin markaad doonto haddii aad Skype oo kale isticmaalayso waad u ogolaan kartaa. inta furto ayaad dhihi kartaa Skype kaligiis baan isticmaalayaa iyo kamarada. ma fahamteen? marka hadda uma baahni. sidaas daraadeed anigu waan iska xanibay dhammaanteed si ay u dhantahay kamarada. looma baahno haddii aynan aadin iska xanibin dhammaantood waa ay ku wada jeedaan. hadda iyo dan voice activationka ku xigo sidoo iyadana waan iska xanibay. waa ujeedaan haddayna ka xanibnayn iska xanib. microphone-kaaga maadaama hadda aan ku hadlayo waxaad u ogolaan kartaa kuwa qaarkood sida Camtasia oo hadda aan isticmaalayo iyo waxyaabo lamid ah. marka sidaas daraadeed kamarada waan u ogolaada, voice recorderkan waan u ogolaada, laakiin inta kale waan ka xir. haddii kaleeto wax uma duubi karayo sida hadda ujeedaan. marka sidaas ayaan ku daway allow the app. marka waxaa kaloo kusoo haray emailkaaga waan iska xanibay. waa ujeedaan call historygaaga waan iska xanibay. waa ujeedaan calendarkaaga inaan lagula isticmaalin waa iska xanibay. waa ujeedaan radioska ama signalka uu diray computerkaaga waa iska xanibay. other devices waa iska xanibay. background applicationada marka aad xataa aadan isticmaalin gadaal ka shaqeynayo waa kuwa dhammaantood waan xanibay. automatic downloadka waan iska xiray. documentska inaan leela wadaagan off baan ka dhigay. allahumma musta'an videoga sidoo kale off baan ka dhigay. file systemka off baan ka dhigay. marka sidaa ujeedin intaan oo dhan waxa ay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah oo Microsoft Windowska loo baahan yahay marka aad computerkaaga caadi u geliso uu maaragtay defaultiga uu yahay uu dhammaantiis privacyga ayaa tegaysaa. marka sidaas ayaa ku ogaan kartaa in aad maaragtay iska xanibto waxyaabaha qaarkood
si aynan hadhow aysan u dhicin waa privacy ga saa ujeedaan dhammaantood waan iska xanibay marka waxaad ha ku kadsoomin kamarada oo kale haddii aad isticmaalayso in aad samayso waxaa muhiim ah kamarada off waa ka dhigi kartaa laakiin programmada qaarkood waa u ogolaan kartaa sida dadka qaarkeed ee Skype-ka isticmaalo kor Skype-ka u ogolaan kartaa inta kale waa u diidi kartaa iyo kamarada labaas lagama maarmaan bay noqonayaan sababtoo ah haddii aad ka damiso ma shaqeynayaan marka kamarada watan waa access bay u haysataa photos kana looma baahno marka waxa waa Skype-ka waa marka saas daraadeed aniga hadda Skype-na ma isticmaalo saas daraadeed waan iska xanibayaa disable baan ka dhigay microphone-ka waa muhiim sababtoo hadda waan ku hadlayaa haddii aan iraahdo aan ka saaro waxaa imaanaysa dhibaato imaanaysa oo aan inaan waxba aan duubi karin marka sidaas daraadeed halkan waxaa ku ogaateen maanta in aan isticmaalnay iska xanibnay Windows 10 qaybo kamid ah oo setting-ka ah oo aan dhici karto in loo isticmaalo advertisement xogahaaga suuqyada lagu kala gato sidaas daraadeed intaan ayaan filaynaa in ay kaaga filan yihiin Windows waxay kamid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee kombiyuutarada la isticmaalo waxaanu ku base garaysan yahay waa GUI wax la yiraahdo oo ah graphic user interface ama wax la yiraahdo what you see is what you get marka sidaas daraadeed waxaan filayaa cashirkan inaad ka faa'iideysateen haddii aad nagu cusub tahay fadlan isqor subscribe and hit that like button saas daraadeed u sheeg axsaabtaada sharing is caring marka xsaabay khair baan idin rajeynayaa wabillahi tawfiiq